بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. walaalaha Soomaaliyeed meelad joogtaan ba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinku ammaanyeelo. cidii dhibandhibka Allah ka qaado, cidii dan la Allah uu fiyo, inta baahan Allah deeqo, inta bugta Allah bogsiyo, intii dhimatay Allah u naxariisto, waalidiinteena Allah u naxariisto, annagana Allah nooga daba naxariisto. dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadlaynaa saddex qodob. qodobka koowaad, wafdi ballaaran oo hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud oo lacagtii ugu badnayd wasaaradda maaliyadda kala baxay kelmadahan ka oranaya iyo meesha u socdaan. qodobka labaad, shirkii madasha iyo Xasan Sheekh oo gabi ahaanba burburay iyo sidii la ogaa la yaqaanay shirku markuu burburo guddi ha loo saaro oo uu ku gabagaboobay, iyadana kelmadahan ka oranaya. qodobka saddexaad, dhul tiro badan oo la boobayo ayaa waxa ka dhacay dhimasho iyo dhaawac. wada hadallada socda qaarna waa lagu heshiiyey oo dawladdii iyo dhiil iyo dullaalo, iyadana kelmadaha ka oranaya. Xasan Sheekh Maxamuud wafdi oo hogaaminayo oo ay ku jiraan 5 wasiir: wasiir fiqi, wasiir faarax, khadiijo, wasiir cabdisalaan dhaay, wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka xanaanada xoolaha xasan eelaay. 5 wasiir ay ku jiraan 2 ra'iisul wasaare ku xigeen saalax iyo ninkii kale. ay ku jiraan 3 xildhibaan oo mid uu yahay hindo culusow ninkeeda maxaa Cabdiqaadir, uu ka mid yahay xildhibaan maxaa Cabdullaahi Buraale, xildhibaan Maxamed Ibraahim Cali, ay ka mid yihiin caruurtii Xasan Sheekh Maxamuud sida Jihaan iyo Cabdifataax iyo koox kale. intaas oo qof oo ka kooban 43 qof ayaa waxay u safrayaan dalka Mareykanka oo lagaga qayb galayo shirka General Assembly. marka koowaad waa tiro xad dhaaf ah. lacagta ay la baxeen $642,000 oo dollar bay kala baxeen, waa almost $1 milyan oo dollar. lacag ku dhow ayay kala baxeen. waxaana la yiri shirkaan aadayna. madaxweynuhu wuxuu hadlayaa maalinta afraad, yaaba joogaba maybe South Sudan iyo inay ku dhageystaan iyo xabada kale oo laga tagay iyo wadamo yar yar. ma istaahila safarkaas inta leeg, ma tahriib baa ku jirta. caalamkii baa yaaban. 5 qof 6 qof baa lagu tagi jiray General Assembly-ga, loomana baahna in la aado. lacagta inta leeg baa la dhacaya. ujeedada meesha loo aadaya, madaxweynuhu dhaqankiisii uu yaqaanay oo ahaa safarada inuu ku boobo hantida ummadda Soomaaliyeed ayuu midii ugu weyneed ku qaatay almost 700,000. waana la og yahay markuu intaa qaato waa wajiga hore, iga soo daba dira ku xigta iyo lacag kale ii soo dira. waa dhaqankiisa. dadka inta tirada la eeg oo baxaya waxaa noo xaqiijiyey oo meel madal ah ka sheegay Xamse Haadow oo ah secretary-ga permanent-ga ama PS-ka permanent secretary-ga dawladda kusimihiisa. hadalka isaga xaqiijiyey dad koox ah buu ka dhex sheegay. qof ka mid ah anaga nooga warramay xogtii. dadka 43 32 ka mid ah waxay ka imanayaan Soomaaliya, 11 kalena meelahaas kale ka kala imaanayaan. waxaana laga hadli doonaa General Assembly-ga. marka lacagtaas ummadda ka baxda masaakiinta ah, mise Xasan darbadii ugu dambeysay ku sii dhufanaya dalka oo wuxuu qaadi karo waa qaadaya. qodobka intaasan ka warnay. madaxweynuhu wuxuu u egyahay qodobka labaad nin aan ka gabanayn booska ugu dambeeya ee dhulka dawladdu ay leedahay ka haray inuu qaadi doono. waxaa dagaal kharibani ka dhacay xeradii Horseed oo ahayd naadigii ciidamada qalabka sida, banaankiisii meeshuu banonigu ku ciyaari jiray iyo deegaankiisii iyo meeshii xafiisyadii dawladdu ay lahayd oo gabi ahaanba dawladdu u diyaarisay inay ciidamada iyo sportskoodu yeeshaan oo la dhacay. markii horena dad baa ku habsaday, haddana dadkii iyo dawladda xabad iskala daalay. 5 wiil oo dhalinyaro ah waa la hubiyey inay ku dhinteen. madaxweynuhu wuxuu raadinayaa waa dhul uu boobo, wuxuuna ku leynayaa waa dadkii shacabka ah ee Soomaalida ah ee isagu madaxweynaha u ah. maxaa lagu sheegi karaa? ma madaxweyne ma qowleysata? waxaa ka horeeyay dagaal qarka la isula istaagay
قضيتي سيناي ما دام أي وعيسليس ليه معلم دبلاوي أي جوال حلي حبذنا كوادين ياسين فريا فرتي سبوسي يدور بقوله كم بالله توري رجي كو جيسها كجتري وحي نوال كلا دبري هاوشاس waxay ku dhamaatay si nabada dawladuna waa boobtay dhulkii waa qaadatay waa siinay waa suuqi weynaa Soomaali oo dhan buu ka dhaxeeya khalaas madaxweynaha wuxuu noqday yani ku qabso ku qadimaysidii baan maqli jiray meel walba oo ay ummadu lahayd inuu qabsado oo wax ku laayo waxna laaluusho waxna qaad inta kalena uu qaato dadkana habeen barkii la qixiyo cagaf hoosta laga geliyo shacabka hadda waxa la ii sheegay inay ku xigto meesha la yiraahdo xamarweyne iyo xagga in la aaday iyo dadkii masaakiinta ahaa oo looma ooyaanka ah dhankoodii inuu u wareegay arrintaasi waa arrin xadin leh waxaan arkayay madaxweyne hore iyo ra'iisul wasaare hore khayre iyo shariif oo cambaareynaya arrintaasi waa ceeb waxaan arkayay oo kale madaxweyne hore farmaajo isaguna cambaareeyay dadka lagu laayay xerada horseed madaxweynuhu wuxuu caan ku yahay dambiyadiisu inay sii badanayaan faylkiisuna uu sii kobcayo uu ka galay ummadan muslimiinta ah ee masaakiinta ah ee danyarta ah ee dhibaataysan gaar ahaan reer muqdisho iyo reer koonfureed dhibaatada uu u geystay oo maalinba maalinta ka dambaysa faylkiisu sii weynaanayo dhulalkaas dadka qabsanayo hadda laga iibinayo oo ganacsatada waa ogyihiin inaysan haysan doonin laakiin anigu waxaan la yaabanahay dadka xagee maskaxdu ka jirtaa oo kaga maqan tahay dhul aysan lahayn gadanaya ninkii ka gadanayaana uu yahay nin boobayo ay ogyihiin inuu xadayo oo dhacayo oo khaa'in yahay waxaan arkayay dadkii oo qaylinayo la xasan tuug dooni mayno intaas levelkaasaan ka baqayay inuu madaxweynuhu madaxweynenimada gaarsiiyo markaan la hadli jiray oo aan dhihi war madaxweynuhu ka daa war adeerow ka xishood war kursiga ceebayn war bahalka ha rifin ilaahay baa hanti ku siiyee dhimatay waa 70 jir baa tahay waxba kuma harine intaad ka dhimanaysid waxa ku noolaatay waad haysataay ilaahay baa ku deeqee kada aan lahaa intaas ceebtaasay maraysaa madaxweynihii in la leeyahay magaalada bartankeedii xasan tuug dooni mayno maxaa ka fool xun oo madaxweynaheena la oran lahaa oo dadkiisu dhihi lahaa tuug waxa ka fool xun oo ay dadku dhihi lahaayeen ii sheega dad baa igu qaylin jiray waagi hore aan dhihi jiray madaxweynuhu tuugu u bareeray oo dharka u dhigtay anoo raba inaan ka bajiyo oo uu ka xishoodo laakiin qof damiir la xishooda qof diin leh oo qoyan qalbigiisu qoyan yahay baa xishooda kanu mid engegay buu eeg yahay oo waxba u harin qodobka intaasan ka oranaya qoladan cayrka hawshoodii way socotaa waxaan maqlayay daylaaf iyo xuseen salaad iyo shaarib weyne iyo group tira badan baa dhiilkaa ku jira oo iyaguna wada ma garanaysaa kadib markii la dhintay oo la dhammaaday waxbad laisla dhacay kadib in halkaa lagu joojiyo oo madaxweynaha dhulka wax laga siiyo isaguna uu wax ka tago waa inoo kala tuura waa dhulkii danta guud waxa la kala tuuranaya kalmada intaas ka oranaya madaxweynuhu safarka uu ku tagay Mareykanka waxa ku hoslaadan waxaad arkaysaa Ted Cruz oo leh Somaliland in la itiraafo base Mareykanka uu leeyahay laga dhiso waxa ku jirta national security waxaad arkaysaa khudbadii Rabiic oo si fiican uga hadlay arinta security councilka waa ku amaanay lahaa dawladda inaan maanta ku amaanaan rabay laakiin waxaan maqlayaa dawladda qaybo kamid ah ayaa waxay ka shaqeynayaan nimanka Ted Cruz waa la yaqaan iyo inta hadlaysaba IPAC bay u shaqeeyaan Israa'iil baa wadata Israa'iil iyo Imaaraad iyo waxa buunbuuninaya arrintan niman la yiraahdo Taiwan kulli dadka wariyayaasha hadlaya oo afkeena ku hadlaya oo dhahaya Somaliland baa la rabaa in waxa ku hadlaya waa dadaan inagu aynaan dirsan ee dad kala dirsaday waxa loo wadwadaa boolisiga dawladdu waa la yaqaan dawladda Mareykanku waa ma aha inay aqbasho Soomaaliya in la kala gooyo Soomaaliya hal bay u taqaan mana isbedelayso arrintaas si sahlan isku bedelayso laakiin dawladdii baa wareertay Mareykanka oo boolisi wax la yiraahdo aan la garanayn Donald Trump wuxuu ku soo campaign gareeyay taad ogtiin America First haddana wuxuu marayaa Israa'iil First kooxda la shaqeysato kamid yahay Ted Cruz waana badan yihiin koox weeye aan qof walba xoogaa inta loo daadiyo IPAC baa biilata waxay leedahay warqada gudbi kelmadda qor yani waxa loo wadwadayaa loogu celcelinayaa dawladda Soomaaliya hadaysan si adag uga hadlin oo aysan arrinta pushback ku sameyn waxaanu marka dambe waxay noqonayaan wax normal ah doqonka usha agtiisa lagu dhuftaa
hadduu hadli waayana dushiisa lagu dhuftaa halkaasay maraysaa dowladdii marka maxay ku mashquulsan tahay yaan dhul ka boobaa caruurtee laayaa rabiic hadalkiisa waan ammaani lahay nin dhalinyaro ah oo weliba degaan ahaan kasoo jeeda reer waqooyi ah oo ka hadlaya security councilka ka hadlaya oo say tahay uga hadlay inay tahay dulmi iyo gardarro iyo meel ka dhac in dad muslimiina ama dad shacaba oo la yiraahdo reer Gaza dhulkooda laga boobo oo dana shakhsiya ama sida uu sheegay Riviera inuu ka dhisto Donald Trump ama ay Yahuudu ka dhisato meelo dalxiis oo annexation lagu sameeyo inay yani waxay noqotay khudbadii ugu caansanayd ee khudbadii halka laga jeediyay ayay noqotay khudbadii Soomaaliya amaanta dawladdu way lahaan lahayd maanta laakiin nasiib darro waxaan arkaynaa maqlaynaa inay dawladda laftigeedu si guudna uga aamusan tahay qadiyada Somaliland iyo Soomaaliya marka la soo qaaday aysan ka hadlayn marka labaadna qaybo ka mid ah dawladda laftigeeda ay wadwadaan arrimahaas qodobkaasna intaasan ka oranaya qodobka ugu dambeeya shirkii madasha wuxuu ku dhamaaday shimbarayo heesa haddaad maqashid shirkii guddi baa loo saaray macnaheedu waa lagu kala tegay face saving sidii looga bixi lahaa fadhiga ayaa fadhi kaga kacba leeyahay ayaa guddiga loo magacaabay saddex group bay u kala jabeen group waa group xildoona oo iyagu siyaasiyiina kursiga madaxweynenimada u socda oo xasan wax ku haysta groupna waa groupka ka hooseeya oo iigu shub dhaqaalaha iyo xooji ah groupka saddexaadna waa group kuraasdoon oo dawladdaasi intaysan dhicin waxuun ka hela ay u badan tahay ujeedka ay meesha ugu jiraan groupka kore waa la yaqaan so far khayre iyo shariif iyo niman muuqda weeye oo raba inay kursi helaan oo xil doon aan doonayn xil hadda ah ee hadhow xil doona dawladda soo socota raba inay qabtaan hoggaankeeda qolo shariif sakiin iyo cumar cabdirashiid iyo daayir geelle waxaana loo sheegay xasan sheekh inay u yihiin shaqaale iyaga ku daaban yihiin dhaqaale ka qaateen nimankaasi ay yihiin niman shaqaysta oo ganacsato ah waxoodana tuurtay wax macno ah oo siyaasadeedna aan ku lahayn iyo culays madasha iyo mucaaradka midna aan ahayn inay dilaalaan xasan iyo kala dilaalaan iyo mucaaradka qolada saddexaad oo ah inta badan inta soo hartayna waa kuraas iyo xilal iyo ma wasiir noqotaa ama shafal baa soo socdaa leeyahay lagu darayaa ama xoogaa lagu dhiibaa intaa weeye gruubkaas marka madasha la oran jiray shirkooda halkaas ku burburay waana lagu kala tegay shirkaasna ceeb baa ka dhacday xasanna lacagtiisu ku joogaa inta u hartay buuqna ma rabo waxaa la ii sheegay xasan inuu ku yiri nimanka mucaaradka ah oo meeshaa jooga farmaajo mooye nin kasta oo kale gacantaydu waa gaartay macnaheedu waxa weeye kulligood lacag baan siiyey nin aan lacag aanan siin kuma jiro ma nin lacag qaatay baa marka mucaarad ahaan kara af wax cunay xisho way iska aamustay waa shiiqday waana dantay aan ogaano markay soo laba kaclay soo dambe khayr badan baa idiin rajaynaya billahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu